walaalow warka waxa soo saaray dowladda federaalka ee Soomaaliya waxayna aad iyo aad dowladdu uga xun tahay falka xadgudubka ku ah xuquuqda musaafiriinta iyo shuruucda caalamiga ah ee lagu hor istaagay isla markaana lagu xanibay safar oo transit ugu ahaa dalka Djibouti la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo u soo socday dalka si shaqooyin uu berri u leeyahay uu qayb uga noqdo. marka Cabdirashiid yaa safarkiisii hakiyay saaka arooriyadii hore diyaaradii Turkiga ka timi halkaas soo caga dhigatay waxa loo sheegay sababa cilada awgood haysta diyaaradda inaanay Soomaaliya u tagi karin mar kale haddana waxa loo sheegay duuliyihii inuu jiraday aviationka Soomaaliya waxay warbixin u direen Djibouti ay leeyihiin diyaaraddaasi way iman kartaa dalka oo wax ciladiina ma jirto marka ka bacdi ayaa isaga si gaar ah dowladda Djibouti ay u beegsatay oo ay u xanibeen haddana wuxuu ku xaniban yahay garoonka waxa la isku dayay baasaboorkiisa in laga qaado diblomaasiga ah baasaboorkiisa hadda isaga haysta safaaradda Soomaaliya Djibouti waxay isku dayday inay ka qaadaan dowladda Djibouti ayaa isku dayday oo xanibaadda safarkiisa dee mas'uulka ah safaaraddeena Djibouti iyaguna ay muhiim tahay inay arkaan mas'uulka Soomaaliyeed ee ku xaniban gudaha dalka Djibouti gaar ahaan garoonka iyagana waa laga hor istaagay in ay la kulmaan dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay cadeynaysaa in mas'uuliyadda buuxda ee mas'uulkaas inta uu ku sugan yahay Djibouti ay qaadayso dowladda dalka Djibouti waxa sidoo kale run ahaantii falkani uu dhibaato ku yahay xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal oo ay u dheer tahay walaaltinimo iyo taariikh soo jireena oo wada dhalasho oo labada dal ay wadaagaan mana ahayn far xilligan oo kale laga sugayay in dowladda Djibouti ay ku dhaqaaqdo warka aad soo saarteen waxa ka dhex muuqday waxa uu eg amnigiisa ma walaac baa idinka haya badqabkiisa walaac wuxuu ka jiraa xaqa uu leeyahay mas'uulkaasi inuu si xor ah u safro xorriyadiisa baa laga qaaday waxa laga hor istaagay inuu guto shaqooyinkiisii walaaca amni xilligan uu ugu xaniban yahay garoonka Djibouti waa mid ay dareensan tahay dowladda Soomaaliya marka Djibouti ma la xiriirteen oo xiriir ma la sameyseen oo ma isku daydeen inaad weydiisaan sababta ay u hakiyeen safarka Fahad war rasmi ah loo diray oo cadeynaya inay mas'uulka u ogolaadaan una fududeeyaan safarkiisa inuu dhamaystirto waana hay sugaynaa wixii jawaab ka yimaada war haddana soo gaaraya wuxuu sheegayaa wasiiro ka tirsan dowladda Djibouti inay beeniyeen inay xayireen socdaalka ama ay xireen Fahad marka adinku wax wara Djibouti midinka soo gaaray sida arrinkani uu dhacay walaalo aniga hadda waxaan ku xaqiijinayaa la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya inuu ku xaniban yahay garoonka Djibouti ciddii kale ee iyagu war soo saartay iyaga kala xiriiri doontaan insha Allah laakiin sidii aan dee ku sheegayba waxa mas'uulka amnigiisa inta uu ku xaniban yahay garoonka Djibouti dowladda walaalaha Cabdirashiid maxaa safarka muhiim ka dhigay berri oo qorshaysnay walaalow berrito sida aad ka warqabtaan ba shirkii uu isugu yeedhay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudaysnaa 18 bisha September oo berri ah oo ku qabsoomo magaalada Muqdisho oo lagu dhageysan doono warbixintii laga sugayay hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka iyo berrito dhici doona isaguna waa la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha qayb ayuuna ka yahay shaqadaas inuu yimaado oo ka qayb galo shirkaas berrina waa mid aad muhiim uga ah qaranka oo dhan Fahad markaad wada hadasheen haddii aad sheekaysateen oo aad warsateen wax kale oo gaar ah xurriyadiisa la xiriira oo idin sheegay ma jirto walaal xorriyadiisa de waa laga qaaday meel gaarana waa la fadhiisiyay baasaboorkiisa diblomaasiga ah ayuu ku safrayay baasaboorka inuu dhiibo ayaa la weydiiyey safaaraddina waa laga hor istaagay inay la kulanto marka xaaladiisu waa noocaas ilaa intee u malaynaysaan inay arrinkani xiriir la yeelan karayo khilaafka madaxda dowladda dhexdeeda ka jira dowladda Soomaaliya u malayn maayo wax xiriir inuu arrimaha la leeyahay run ahaantii dee waxana cad arrintan mas'uuliyaddeeda waxa iska leh dowladda Djibouti dowladda federaalka ee Soomaaliyana arrintaas way cadaysay sida ay uga xun tahay maxaa marka idin qorsho ah xaggiina hadda maxaa tilaabooyin oo xiga markii laga soo tago inaad war ka sugaysaan Djibouti waxaan rajaynaynaa dowladda walaalahana ee Djibouti inay u fududayso la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha inuu safarkiisa sii wato taas ayaa dani ugu jirtaa xiriirka labada dal iyo labada shacab ee walaalaha ah in ay si nabad ah muwaadiniintoodu ay u kala safraan mar kalena waxaan ku celinaynaa codsiga ah in mas'uulka Soomaaliyeed loo fududeeyo safarkiisa saraakiil kale oo dowladda ka tirsan oo safarka la taliyaha amniga madaxweynaha ku wehlisay ma jirta way jiraan saraakiil kale oo isla diyaaraddaas la xanibay saarnaa